مسؤولية وين واي كلية ما أها وان بورسدي جعل باي قلي ويعكنا وي إمادين إنان كم ممنوع إنه المير إنان تليفون وديب نو كريس أو ناس كده أو حرتي بلاي تشنيو كساكا صباح ذا هدوسن حتى وحن وقصوا بحينين ساس توكويها الماء وعالم كده كسو حرينها ayaa dhibaato weyn u gaarsiinayso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa in wada salaam walaalay qaali ah salaan kale ee laab ah kadib soo dhawaada walaashin ishraaq oo ilaahay idin ka rajaynaysa inaad meel walba ku sugan tihiin khayr iyo barako iyo nicmo iyo ilaahay oo naga wada raali ah aad ku sugan tihiin mowduuc aad muhiim u ah baan rabaa inaan kaga hadlo haddii ilaahay yiraahdo inaan faa'iidana noo wada yeesho mowduucaas ilaahay subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wuxuu ku saabsan yahay ciyaalka iyo social media. ciyaalka da walba oo yihiin iyo social media amaba technology-ga social media iyo technology iyo wax fiirsashada iyo muuqaalada iyo media noocaas ah sida aan ognahayba social media iyo internet iyo TV iyo hadana almost internet oo kale iska noqday oo smart ah oo sidii Netflix hadii ahaan lahayd YouTube hadii ahaan lahayd Disney Junior ima qaxay tahay Disney Plus ama waxyaabo u dhigma hadda meesha joogtid ayaa ka buuxa qurba iyo dalba internetku waa wax baadihi ila baadihi u gaaray internet ila baadihi waxaan maqlay TikTok ilma yar oo 5 jir ah 5 sano ya oo TikTok daawanaya bigabar iga sheekeynaysa 5 jir TikTok daawanaya annaga waalidiin hadaan nahay marka maxaan laga rabaa dad waxa jira ay mamnuuc ka tahay ya mamnuuc ilmo intuu ka qaangaarayo aqliyeysanayo oo xataa dhaafayo xaafado reero waxaan maqlay ay mamnuuc ka tahay haddii ay taas awoodaan ay u hagaagtay ilaahay ku hagaajiyay ilaahayna u fududeeyay alxamdulillah laakiin sida caanka ah sida u badan waxa waaye in aysan fududayn in loo wada diiday ilmihii social media laakiin waxaan laga rabaa ayaa waxay tahay in aan waxa ay ilmaheena daawanayaan oo ku socdo aan la socono laba sababood labadaba muhiim way u tahay in ilmaha waxa ay daawanayaan iyo inta ay daawanayaan waa mid ilmuhu markuu yar yahay soo korayo oo marka baby laga soo bilaabo ilaahiisa intuu ka dhameystirmayo saameyn kala duwan ay ku leedahay the more uu yar yahayna the more waxyeelada wax daawashada waxyeeladeeda ay badan tahay waxyeelada wax daawashada sidee wax u yeelaysaa koriishihii maskaxda ayay defect garaysaa maskaxda bini'aadamka waxay u shaqaysaa in ay wada dhaqan uu socdo marka TV-ga one way iyo information-ki iyo internet-ki iyo social media iyo wixii one way ayay wax ugu socdaan waxa TV-ga ka socdo wixii reality-ga ah ma soma runtii way ka duwan tahay wada dhaqanka way ka duwan tahay qof baa kugu xanaaqaya qof baa kugu farxaya waa la sheekaysanaysaa emotion-kaaga si sax ah u soo gudbinaysaa laakiin halkan waxa waaye maanta dhan ama waa action ama waa wax isciirsanaya marka ilmihii maskaxdiisii TV-ga basically korinaya ya TV-ga ayaa korinaya sidoo kale sawiradaas iyo codkaas iyo waxyaabahaas kalaradaas kala wada duwan ya oo isdhaaf oo isbedbedelaya oo waxyaabaha loogu talagalay inuu daawaduhu uu xiiso u yeesho ku dhaganaado TV addicted ku noqdo situation iyo sawir iyo iftiin iyo cod iyo waxyaabo badan isbedbedelaya maskaxdii marka uma fiicna ilmo yar oo 4 sano ama 3 sano ama 2 sano ama 1 sano oo bilo jiro hadda marka waxaas ku socdaan maskaxdiisa si fiican ma u develop gareynayso si fiican ma u korayso sida saxda ma korayso ilmo xanaaqo dhulka isku tuura madax darbiyada ku garaado ama maxaan ku raadaay oo aad qancin kari weydid waxyaabaha u keeno waxa waaye communication ku TV-ga la sameeyo one way communication iyo sawiradaas iyo iftiinkaas iyo codadkaas iyo waxaan ka hadlay iyo inuusan helin qof kale oo bini aadam ah waxa waa aalad ilaane qof bini aadam ah oo la interact gareeyo oo maxaan ku raada habsiyo oo la hadlo oo u jawaabo ila TV-ga su'aalo waxa uu arkaya su'aalo ka qaba su'aalo isweydiinaya su'aal qof uga jawaabay male wixii sii soconaya ta kale ay muhiim u tahay in ilmaheena la socono aan ogaano waxa ay daawanayaan waxa weeyaan dad muslim ah baan nahay oo principles iyo mabaadi iyo haysta ilmihii waxay ka arkayaan TV-ga waxyaabo diinteena ay ka soo horjeedo wixiina maskaxdii ay ku kala koobi lahaayeen iyagoo waliba diin aan baranin oo diin gaarin oo si fiican waxba u fahmaynin markay fasax u yihiin inay wax walba arki karaan yaa ka masuula markaas wixii saxda hadaan bareen haddii aanan alternative u haynin oo aanan baraynin wixii saxda ahaa wixii khaladka ahaa intay qaataan caadi u maleynayaan annagaana u fasaxna ilaan tusaale TikTok hadaan ku noqdo waxa waa TikTok waxa ka soo baxay waan wada ognahay nagama qarsoona
ilmo yar oo marka caqligiisa iyo maskaxdiisa waxyaabo badan ay soo baranayso oo soo koraysa oo fahmaya markuu arko balaayo qaawan markuu arko ceeb oo dhan markuu arko wax maxaan ku raadayay dhaqankeena iyo diinteena iyo ka fogo ka aan shaqo ku lahayn markuu arko yaa ka mas'uul ah annaga u ogolaanay soo ma annaga telefoonka farta ka saarnay annaga iskaga jeedinay telefoonka marka annaga laga rabaa in aan ilmaheena waxa ay qaadanayaan luqadaha wasakhda ah luqad aflagaada ay iyo aflagaado iyo wax qaawan iyo macaasi iyo wax walba ka soo baxaya indhahooda ay ku dhacayso ilmaha nadiifta oo qalbiga nadiifta oo fitrada Ilaahay ku dhashay ya inaan ka wasakhayno annaga ayaa sababayna marka waa inaan annaga ka ilaalinaa hadhowna waxa la leeyahay uu madax adkaaday waxba ma maqlayo dhaqanka gaaladu qaatay waxyaabo noocaas oo kale ah annaga ka mas'uula maxaa sababaya in aanan ilmihii waxay daawanayaan aan la socon waxa sababaya markaan ka fikiro waxa ii soo baxay waxa waaye in aanan energy iyo waqti aanan rabin inaan ku bixino waan rabin baan dhahayaa waayo waan awoodeedii waan haysanaa priority baan siinaynin awlawiyadii ama inaan iyaga hormarino ayaanan ku dadaalaynin waxaan hormarinaynaa waxyaabihii kale oo dhan problemyadii kale oo dhan adduunka kale oo dhan heblaayo maxay ku tiri sug telefoonkan ka gaarayay iyo waan daalanahay shaqo iyo ummad iswada haysata waxyaabo waxa hadda ku hoos yaala ilaa mas'uul baa tahay ilmaad mas'uul ka noqotay ilmahaas baa number 1 priority ku ah shaqada aad shaqaynaysid dadka xiriir la xiriiraysid waxaas oo dhan waxa ka muhiimsan iyaga u shaqaynaysa maxaad markaad u soo shaqaysid cuntada cunayaan kaliya miyaa muhiim ah mararkay xiranayaan kaliya muhiim ah ma waxa muhiim ah maxaan ku raadayay meeshii seexan lahaayeen inaad ka fikirtid waxyaabahaas waa asaasiyaadkii waxyaabahaas waxa waxay ku sarbaag garayn lahaayeen laakiin inta aad ku bixinaysid inaad waxay cunaan iyo dhar ay xirtaan aad u keentid in laag ama ka badan waa inaad ku bixisid iyaga tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda soma marka waa inaad adiga ku dadaashid stresskaaga iska ilaalisid balaa wax kale kugu furay iska ilaalisid shaqadaada aad waqtigeeda cayiman yahay aad ogtahay waqtiga marka shaqada ku jirtid xataa ay u program garaysan tahay ciyaalkaaga waxay ku mashquulsan yihiin waxay sameynayaan adiga ay mas'uuliyadaada tahay haddaad hooyo tahay carruurtaada la joogtidna adiga mas'uuliyadaada tahay haddaad aabba tahay carruurtaada aad u shaqo ugu maqan tahayna waxay ku maqan yihiin inaad la qorshaysid xaaskaaga oo la dejisid oo isla ogtihiin ood ka nasisid aad program wada samaysataan carruurtii lagu mashquulo oo tarbiyadooda lagu mashquulo waa muhiim laakiin in la dhaho asagana shaqo ku maqaya maanta shaqadii ma aha aniga miya caawiyo anigana dee sidoo kale amba shaqan ku maqanahay ama hawsha guriga ugu badan ama carruurta ugu badan carruurta waxa tarbiyada waxay ka bilaabataa intaysan dhalaninba sidee uga bilaabataa taas ma baysan dhalin tarbiyada sidee uga bilaabataa waxay uga bilaabataa waxa waaye qofkan markuu guursanayo inuu ka fakaro qofku guursanayo inuu yahay qof diintiisa akhlaaqdiisa mabaadi'diisa aad ku qanacsan tahay oo islaamka ay waafaqsan tahay oo isku ogtihiin waxa ay muhiimka ku ah ilmaha daan dhalno seen u tarbiyadaysanayna maxaa sameeynayna maxaa noo muhiim ah waxaas ma laga hadlo mana ka hadalna annaga inta hadeertaan guurka u socotooy ya intaas ka fakara marka hore inteena already carruurta haysatana waxaan soo qabanay waxaan dadaali karnaa waan soo dadaalnay hadeertaana waxaan bedeli karnaa oo ku dadaali karnaa waa inaan ku dadaalnaa allahumma salli ala sayyidina maxamed wa ala alihi wasahbihi wasallam marka hooyo iyo aabbo waxyaabaha kalifaya ilmahaaga isweydii maxaa kalifaya ma rabta adiga ma ku faraxsan tahay inuu ilmahaaga 24/7 yaa waqti kasto chance walba firaaqaha uu haysto inuu social media ku jiro oo uu saas leeyahay ya gaari baa ama baabuur baa la saaran yahay waxa loo tuurayaa mobilka wuxuu daawanaya lama socdo telefoon baa laga yaabaa inaan ku mashquulsanahay halkaas fadhinaa ashaqalkaas iyo halkaas soo fadhiya wuxuu ku qalafay waa aragtay halkaas sun u yahay anaga waaweyn oo maskaxdeena dee Allah alam tam maskaxdeena ay kortay baaba addicted ku noqonay waxa moodaa magnet waxaad moodaa wax ku hypnotize gareynaya haddii aan qofku uusan qorsheyn wuxuu ku sameynayo waa very serious waana khatar carruurtan way uga sii daran tahay gaaladii ya wax walba iska walaaqanaysay ayaa TV-gooda waxay ku soo qoraan 7 jir ka badan ka hoose laguma talagelin 3 jir ka hoose laguma talagelin game-kan 18 jir ka hoose laguma talagelin indhahayga waxaan ku arkay game-amka xabadaha lagu siinayo oo 18 jir wixii ka koreeya arka ilmo yar oo 2 sano jir ciyaaraya waxaas ya waxa ugu wacan annagii oo aanan u haynin
niyaddeeni iyo maskaxdeeni iyo waxaani baa mashquulsan oo wax kale ku mashquulsan oo caruurta ku mashquulsaneen kalena ugu fiican baa wuxuu samaynayaa dugsi u diraya oo ogeyn la socon xataa wuxuu soo bartay wuxuu soo dhigtay wuxuu soo xafiday iyo wixii la soo yiri mas'uuliyad weyn waaye kaliya ma aha waan guursaday jacayl baa galay maxaan ku iraahdaa way ciyaalkana way imaadeen muhiimadda maxaa waaye muhiimadda hadduu ilaahay ilmo idna siiyey oo uu naga beeray ilmo waa mas'uuliyad waa inaan marka ku dadaalnaa loo baahan yahay ilaahay hana la garab galo oo caruurta waxa ay daawanayaan haddaanan u diidaynin xataa intaan la fariisano haddaanan u diidi karin ama ka mamnuuci karin ama alternative waxaan ugu bedelna aanan haynin ya intaan la fariisano aan dhihi karno okay 10 daqiiqo waxay daawanaysaa ya bal hadda fiiriya mommy finger daddy finger bacruurta daawan gabadheeda waxay daawan jirtay mommy finger daddy finger anoo la daawanayo ayaa waxa soo baxaya 100 suggestion waa ogtiin hal jirka ayaa intuu saas farta ku dhaho ku kala taabsan kara ya mommy finger daddy finger oo maxaa heeday nacnac ah ama waxyaabo kala shantii farood baa waxa ka soo baxaya shayaadiin madaxyo waaweyn ilmihi uu isku nahay wasasay uu soo qorway habeenku soo kacay aanan arkay ilmihi wuxuu daawanayo ilmuhu wuxuu dabeecad uga khaldantay ma ogaaneen soo inaan la fariisano ognahay waxay daawanayaan si aan dhahno wait kana ka dhaafiyo ku kala ku geynaya hay 5 daqiiqo ku dhamaatay wax kale ma daawanaysid bas waxa ku soo hartay kuwa roon inaa u qabatid maxaa daawan rabtaa waxaan daawan rabaa itus haye meela aan ka arkay la soo fariiso waa inaan la soo internetka balaya ka buuxda ma daawan kartid kaliya haye way daawanayaan oo qabo daqiiqadii ay u qabatay hada wasalaam TV-ga ku soo haray luqadda haye ilmaha waxay daawanayaan cartoonka caadiga ah ayo naqaanay waxaan daawanaynaa cartoon la dhaho oddballs waxa ku qoran all anaga all ka gaalada all waxa laga wadaa cashan kulli qof walba inuu daawan karo all ka gaalada ama maxay ahayd markii loogu ogolay inuu qof walba daawan karaan from 0 to 100 jir baa daawan kara ay tahay ya de anaga ma aha keeni 10 jirkeena duusan si fiican u fahansaneen diintii iyo dhaqankii iyo wixii oddballs ma daawan karo kaligiis xataa ma daawan karo cartoonkaas ninka arki doontaan waa wax yar oo cad oo macqa wuxuu yahay baa jooga bahal la yar waaye wax wiilkii laga wada wax gabadh laga wada si qaab daran u salibsan oo codkeen ka siinaysa ilmihi marka duusan maskax ku filan haysanin waxyaabahaas oo iskaga qoslaya ya laakiin si maskaxdiisu wuxuu register gareynaya okay waxaas waan daawan guriga waan ku daawanaa waa caadi de maxay marka mamnuuc u tahay khalad u tahay inaan anaga waxa waan daawanayna guriga waan ku daawanayna waa okay asxaabteena iskuulka maxaa soo wada dhaqan weynay haduusan markiisa hore u dhisnayna fahansaneen marka waxa ay ku hadlayaan inaan la socono programyada caruurta la dhaho meeqa waa age-ka 7 jir loogu talagalay okay waa daawan kartaa marka inaan la socono oo la daawano oo la ognahay oo waqti u qabano inaan ka mamnuucno ilmo yar inaan telefoon u dhiibno kaligiis oo dhaana iska daa waxa rabtid balaajiniyo ka saa kaaga soo baxday haduusan xataa wax xun uga soo bixaynin saas uu ku yahay ilmaha oo caalamka dhan ka soo xiran yahay ayaa dhibaato weyn u gaarsiinaysa hadalka waan ku badiyay iga raadi ahaada waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo dadaalka yaa qof walbooba waxaad beeratid ayaa leedahay miraha ku ridid dhulka yaa waa ku soo baxay tiitiinka qodxa leh hadda mirihiisa daa ku ridid dhulka timir ma suuye maamadas ana aliftay marka ilaahay ha noo wada gargaaro ilaahay ha noo gargaaro waqti adag baa la maraya runtii waan salaamayaa waxaan ilaahay idin barakeeyo han isu soo wada duceeyo meel buu joogtaan waxaan leeyahay ilaahay farxad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo barako iyo khaatimo khayr leh baa idin wada baraya ilaahay idinka baraya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh